بسم الله الرحمن الرحيم فيديو كان عاو waxaan ugu tiragalay inaan la hadlo dadka reer Mandera oo qaasatan aan kala hadlo ninka hadda governorka noo ah oo rabo inuu noqdo senator sababtu uu noqonayo iyo waxyaalaha uu isticmaal rabaan in sheegaya senator aqalka sare ee baarlamaanka senator loo yaqaan horta waa meesha ay loogu doodo arrimaha countiga ama dowlad deegaanada waxa loo yaqaano counties taasi qofka senatorka marka wuxuu matalayaa danta iyo wax kasta oo u faa'iideynayo countiga Mandera haddii marka nin 10 sano governor ahaa aan ognahay darbi iyo wada maahan shacabki iyo wax qabadkii ee aad u yareyd aad geysaan guriga sanadka waxaan in sheegay inaad ka shalaynaysan sababahan waa in sheegaya xisbigu samaystay Ibrahim Ali Roba oo loo yaqaano UDM xisbiga sababtu uu kale waxa weeye maadaama uu 10 sano ka soo ahaas governor ama pressure countiga Mandera haddii uu helo 10 xildhibaan ama 5 xildhibaan ama wax loo yaqaan MCA asagana uu noqdo senatorka way adkaanaysaa isla xisaabtankii iyo dabagalkii maadaama uu asaga joogo sanadka marka waxaan sheegayaa in ninkan 10 sano ayuu joogay countiga Mandera in laga ilaaliyo in loo doorto sanadka haddaad u doorataan sanadka countiga Mandera waad ka shalaynaysaa qof kasta oo la kulantid aniga waxaan ahaa ninka ka shaqeynayay countiga waxaan degnaa magaalada Mandera 10 sano la soo dhaafay Al Roba 2013 2014 2015 maxkamadda sare ayaan geeyay anoo ka tabanayo si qaabkii loo maamulay dakhliga haddaad eegtid qaabka loo maamulay dakhliga la soo dhaafay 9 sano la soo dhaafay Mandera East waxaa gashay 16 billion 16.8 billion Mandera South waxaa gashay 5.8 billion Mandera West waxaa gashay 3 billion Banisa waxaa gashay 1.528 billion Mandera North waxaa gashay 1.436 billion Lafay waxaa gashay 882 million waxaa isweydiinayna waxaa weeye marka qofka markii maamul loo dhiibo waxaan ognahay Al Roba wuxuu ka shaqeyn jiray maqaayad ku taalo Nokfog markii dambana qaybaha tourismka iyo Itaaliyo ka shaqeyn jiray nin wuxuu iska ahaa pilot oo ka shaqeysta halkan airportka Nairobi lacagtiisa waa loogintu qaadan jiray mishaarkiisu wuxuu ahaa 850 kun oo taxi ku jirta hadirtan lacagtiisa oo dhan marka xisaabtid mishaarka 9 sano waa ilaa 95 milyan 95 milyan oo 9 sano iyo waxa soo hantiyo la sameeyo waad garan kartaan hantida meesha laga sameeyay aniga Maxamed Aadan Khaliif waa nin speaker ah tokumaan iskula jirnay videogan hadirtan asagu ma saabsana videoga wuxuu ku saabsan yahay Ali Ibrahim Roba oo ah governorka ay u dhimantahay 4 bilood iyo 21 beri oo samaystay xisbi loo yaqaan UDM uu rabo inuu dadka reer Mandera ku gumaado waxa lagu eedeynaa inuu qabsaday dhul loo ilaa 150 acre 150,000 hectares oo beer ku leeyahay Mandera hotel waadar gurigiisa agtiisa hotel wax buu ka dhisayaa waxaan isweydiinaynaa reer Mandera hadaan nin 9 sano mishaarkiisu uu yahay 94 milyan intaasoo hanti intuu ka keen waa inay isweydiisaan isbitaal al dhisay leeyahay xafiis baa la dhisay xageed ku aragteen xafiisya 9 sano 10 sano la dhisayo oo ku bixayso ilaa guri governor la dhisay leeyahay oo swimming pool reer Mandera boqolkiiba 80 waa countiga ugu saboolsan wadankan Kenya dadkii macluul bay labaayeen abaar baa jirta markaas lagu leeyahay marka hadan waxaan rabaa senator waxaan inkiga digiyaa markii la gaaro 2020 2021 2022 xisaabta dawladda ama wax loo yaqaan audit inay adkaan doonto dad senator u doorataan in dabagal laga sameeyo aqalka sare ee Nairobi dadka Allah hadlo dhan way u dhaarsiin Al Roba in dhulka la dhaco in la rido reer Mandera waxaan kaga talinayaa ninkaas dhibka uu reer Mandera u geysto ma leh waxa soo darbiyo la dhisay masaakiin baa laga leeyahay waxa soo shakhsi guriya dhistay masaakiin bay dadka ka yihiin isbitaal baa la lagu leeyahay ma ogtahay wali in la isticmaalayo laabkii la dhisay Ingiriiska ay dhiseen ama dawladii Kenyatta ay dhistay in wali la isticmaalayo emergency accident lagu leeyahay maxaa loogu soo guur waayay laabka marka waxaan sheegayaa waxyaalaha la dhisay markaad eegtid lacagta gashay intaas oo bilyan ayaa gashay lacagahaas
xageed ku aragtay guri governor loo dhisayo oo 9 sano la dhisayo xageed ku aragtay county headquarter 9 sano la dhisayo warnamayo tala in la siman dadka aad dooranaysaan dadka aad sanad u dooranaysaan waa inaad ka ilaalisaan ninkan wuxuu rabaa inuu dawlad soo dhiso maxamed aad qariif wuxuu speakerka haddii governor uu noqdo oo deputy governor qof shaqaalihiis hore uu ka dhigto asagana senator uu noqdo xisbana uu leeyahay qatar intee la eg ayay ku tahay ismaamul wanaaga dawladnimada waxa loo yaqaan the principle of good governance accountability and transparency xagee laga arkaya waxaan ii sheegayaa maadaama aanu nahay dadkii wax bartay dadkii ka soo jeeday countiga dadka u naxay ummadaas ninkaasi laguma aamini karo sanadka xisbigu ka furtay halkan abaar baa jirta halkan buu degan yahay waa markii wuxuu ku jiraa inuu dumar bilcamaha iska badsado hadduu nin rag yahay markuu u shaqaynayay pilot markuu ahaa 3 nagood muxuu guursan waa 4 nagood muxuu guursan waa hal xaas buu lahaa governator markuu noqdo kadib hanti buu sameeyay wuxuu ka sameeyay hantida dadweynaha ee reer Mandera videogan waa qaybta koobaad insha Allah jimcada soo socota waxaan soo bandhigi doonaa qaababka loo shaqeeyay dadka u shaqeeyay kaambaniyaasha lacagta la siiyay lagama gaban doono reer Lafey reer Mandera North reer Banisa waad ku dulmantiin countigan ku tulo waxay leegtahay waa hal ward uma diiday xaqooda laakiin reer Mandera North iyo reer Banis xaqooda in la siiyana xaq bay u tahay ninkii maanta abaartan jirta xisbi 500 milyan 400 u aruurinayo kala gadanayo dadka ku faanayo inuu lacag leeyahay senator hadduu noqdo idinka ka shalaynaysiin wa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh hadduu ilaahay idmo waa qaybta dambe insha Allah jimcada soo socota iyo waqtigan camal thank you very much